kaltuun sheekh xasan cabdi madaxa wacyigelinta ee komishanka doorashooyinka qaranka oo saaka warbaahinta dawladda kula hadlaysay dhismaha komishanka doorashooyinka ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sharaxaad ka bixisay kala duwanaanshiyaha kaarka muwaadinka ee dhalashada iyo waliba kaarka codbixinta ee xilligan diiwaangelintiisu ay ka socoto gobolka Togdheer. kaltuun sheekh xasan cabdi oo arrimaha si faahfaahinaysa ayaa waxay tiri waxa muhiim ah inaynu fahanno oo bulshada fahanto qaabka diiwaangelinta codbixiyayaasha ama kaarka diiwaangelinta codbixiyayaasha. inta badan waxa dadka isaga qaldan kaarka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo kaarka muwaadinka. kaarka muwaadinku waa kaarka cadeynaya qofku inuu yahay qof reer Somaliland ama qof Somalilander ah. kaarka kale waa kaarka looga baahan yahay inuu qaato qofka codbixiyaha ah. kaarkan hore ee diiwaangelinta madaniga waxa mas'uulka ah wasaaradda arrimaha gudaha. kaarkaasi wuxuu u fududeynayaa qofka inuu sii qaato marka uu doonayo inuu si diiwaan geliyo si uu u helo kaarka codbixiyaha. taas waxay cadeynaysaa muujinaysaa qofku inuu yahay qof muwaadin ah oo Somalilander ah. haddii haddaba aanu sidanin kaarka muwaadinka qofka looma diidayo inuu si diiwaan geliyo si uu u qaato kaarkiisa codbixinta. waxa goobta ku sugan wakiil ka socda wasaaradda arrimaha gudaha oo cadeyn doona qofku inuu yahay muwaadin Somalilander ah. inta ka bacdi baa loo diiwaan gelin doonaa qofku inuu isu diiwaan geliyo si uu u helo kaarkiisa codbixinta. laakiin waxa muhiim ah inaynu kala fahanno oo bulshadu kala fahanto faraqa u dhaxeeya labada kaarka muwaadinka iyo kaarka codbixiyaha. haddii aad sidato maalinta doorashada kaarka codbixinta waxa ku suurtagelisay markaa inaad codkaaga dhiibato. haddii laakiin aad la timaado kaarka muwaadinka suurtagal kuma noqonayso inaad maalinta codeyso. marka bulshadu muwaadiniintu waa inay ogaadaan faa'iidada uu leeyahay qaadashada kaarka codbixinta. dhanka kalena marwo kaltuun sheekh xasan cabdi waxa ay bulshada reer Somaliland ku wacyigelisay in ay si diiwaangeliyaan qaadashada kaarka codbixinta ee xilligan ay diiwaangelintiisu ka socoto gobolka Togdheer. qof kasta xilliga ay soo gaadho in uu isdiiwaangeliyo. waxaan ku wacyigelinaynaa qof kasta oo reer Somaliland ama Somalilander ah inuu si diiwaangeliyo sida uu qaadan lahaa kaarka codbixinta. waana muhiim qof kasta oo gaadhay waqtigii loogu talagalay daadii loogu talagalay oo gaadhay 16 jir maalinta doorashada in imkiisa si diiwaan geliyo haddii Ilaahay ka dhigo.